السلام عليكم أصحابتك وحرين شلل كنا بي سي جيلان فضلا سبسكرايب النصار نو شير قراء أنتي سبسكرايب النصار تي أدي أدوم رسنتي بقول أنت كلام نقول اسمه حنا سبسكرايب النصار وحن ما تدين وضع معها برنامج تشالنجية رياكشن برنامج عشود منا معها وحوي واحد لما هذه سنة كي لبضة كوني ولا بعتنك أنا الصالح مش إحني هدي ولا ما هذه مركب ما توحد ندي وضع وحيالها سنة كعصب ناقش شيء سنة إن شاء الله waxaan bilaabi doonaa barnaamij cusub oo laakiin kaliya aniga maaha saaxiibkay ugu helnaya oo in badan wax laga yaabaa inaad aragteen laakiin si aan kamarada toos uga soo dhex muuqan jirnay markasta wax duubayo kamarada haya hatta laan kamarada haya halkaas in fadhiyaan garasa aad baan salaamay isagana 100% yaa waga qaaday oo laqaasa والله صار سلامته اللي قاعدي يدكنا كقاعدة ما اللي سلامته مركا dadna qaar waxay weydiin xagee laga xiriiri karaa dadka laga yaabo in aanay lahayn ay qaar ba meel isticmaalaan ku yar badin marka Instagram-kaygu waa kan waliba laba Instagram laga yaabo waxaan idin soo dhigi doonaa linkiga ma waliba xagga hoose description-ka YouTube-ka WhatsApp-kayguna waa kan hada WhatsApp isticmaasho Instagram isticmaalin waliba Instagram-yadeedu waa laba ka akoolkan suurka xidhan mooyee kan fanaanada xidhanay ay saaran yahay aad igala soo hadli doontaa waliba kan description-ka yaala ayaa ki saxda ah barnaamijka soo bilaaban doonana wiilkaas ay ugu helin doona marka waxaan idin rajeynayaa caafimaad qab iyo sanadka cusub inaynu wada bilaaban doono xilligan imanka aan joognaa waxa weeye bishii 12/2020ka 31 bishii 12 waliba sanadku markuu soo dhamaado bisha koobaad 2021ka kowdeeda bisha ayaan ka bilaabi doonaa fiidiyoyada aan rajeynayo oo aan waliba ka dhigi doono taxano marka waxaan rajeynayaa inaad fiidiyodan la socon doonto maalin walba waxaan rajeynayaa inaan soo galino aniyo wiilkan saaxiibkan ahay 12ka duhurnimo ama kowda bad inta u dhaxaysa isla socod wanaagsan halkaan waad nagala soo xiriiri kartaan wixii aad idea haysanaa WhatsApp-ka ama Instagram-ka ku soo qori kartaan وأنا سلامي عندي قلت لي سلامة الإسلام كان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.